boqolkiiba 90 dadka badankooda mushaharka soo galay wuxuu dhamaadaa kahor inta aysan bishu dhamaan laakiin sababtu ma ahan mushahar yari videogan waxaan kugu wadaagi doonaa nidaam fudud oo ka caawin doona inaad wax kaydsato xataa haddii mushaharkaagu yar yahay sirta u dambaysa ayaana ah ta la isku dhaafay talaabooyinkan soo socday waa kuwo hore loo tijaabiyey anigana iga caawiyey inaan wax kaydsado kabacdina aan wax maalgashado adigana aan cadaadis kugu noqon doonin haddii aad ku dhaqantaan waxaad arki doontaa isla bil gudaheed inaad wax kaydsatay insha Allah balse marka hore bal aynu isla eegno beenaha laynaga dhaadhiciyey lacag badan ayaa wax laga dhigtaa wax kaydsigu ma ahan lacag ee waa nidaam haddii aad leedahay marka lacag badan isoo gasho ayaan wax kaydsan doonaa taasi ma aha wax kaydsi ee waxaad ku nooshahay falsafad faqriyeed kaydintu waa sidii geed oo kale ciddii geed beerata ayaa hadhsata laakiin qaladka ugu weyn ee dadka badankoodu ay sameeyaan waa isla marka mushahar uu soo dhaco qaladka koobaad lacag badan waxay kaa dhigtaa faqri haddii aad rabto inaad lacag fara badan aad hesho si aad wax u kaydsato weli kaada maskaxda faqri ayaad ka tahay qofkan aad arkaysaa waa aniga balse aan kaa dabageeyo wixii hore u dhacay waxaan qaadan jiray isbuuc walba ku dhawaad $22 kabacdina waxa dhacday in mushaharkii soo gali jiray la ii kordhiyo la igana dhigo $100 isla markii lacagtaasi soo gashay in mushkilada far badan aan la kulmay waxaan la kulmay inaan dhar far badan iibsado inaan kaba far badan iibsado inaan maxay bixiyo halkan ku bixiyo iyo wax lamid ah lacagta aan la ogeyn sida ay u kala baxday waa qaladka ugu weyn ee aad samaynayso kahor intaadan oran lacag badan ayaan rabaa bal marka hore waxa hadda ku soo gala wax ka ogow maxaa ku soo gala maxaa ka baxa maxaase ku hara iyo wax lamid ah qaladka labaad kaydi waxa soo hara hadeer wada yaabantay waxaad leedahay lacagta soo hadha baa la kaydin karaya waatan qaladka ugu weyn ee aad samaynayso kaba soo qaad waxa ku soo gala dakhli noocana ha ahaado mid mushaar ka soo gala ama ha ahaado mid ganacsiga ka soo gala $700 ayaa ku soo gasha bil walba kabacdina waxaad bixisay kiradii oo $250 raashinkii xaafadda ayaad bixisay oo $150 biilkii xaafaddu ay si maalin loo isticmaaleen ayaad bixisay $50 biyaha iyo leerka ayaad bixisay oo $40 internetkii mobilka kugu jiray iyo ka xaafadda ayaad bixisay oo $35 gaadhi raacaagi ayaad bixisay oo ah $80 bixis iyo shaax iyo qaxwo iyo wixii banaan kaaga baxaya $50 ayaad u qorsheysay kusoo boodada ku soo bixi doonta bisha dhameystiran waxaad ku bixisay $30 hadhaagaagu waa $15 markaad aragto in hadhaagaagu uu yar yahay waxaad tiraahdaa war waxaan lagu wareera maahe oo maskaxda la saga xiijiye ilaahay ayaan ka baraya arsaaq ka fiican inay soo gasho ha way yartahay oo kuma diidani aniguna waan kula qabaa balse waa tan qaladka aad samaynayso ciladu ma aha in waxa ku haray uu yar yahay ee ciladu waa in wax kaydsigii aad ugu dambaysiisay Warren Buffett ayuu xidhaahdaa do not save what's left after spending but spend what's left after spending sharcigani wuxuu iga caawiyay in maalgashigayga ugu horeeyo aan sameeyo waa kan aniga oo sharaxayna lacag ayaa isoo gashay aan ku noolaan lahaa lacagtii cunaha ayaan iska qabtay kabacdina mustaqbalkayga ayaan wax u dhigay maalgashigayga ugu horeeyna saas ayaan ku sameeyay waxaad ku noolaato ma weydid balse waxaad dhigato ood maalgashato way adag tahay inaad hesho sabab ayaanu leeyahay aniga ayaa taa ku dhaqmay oo sameeyay waxaan ku noolaado waan ogaa inaan heli maskaxda ayaan u daayay inay shaqayso oo meel wax ka keento wayna samaysay waxna way ka keentay meel waana sii noolaaday alxamdulillah balse kaydka aan sameeyay way adkaan lahayd haddaanan samayn lahayn taasi wax la cuno suuliga ayuu mutagaa balse waxaad mustaqbalkaaga u dhigto ood kaydsato mustaqbalkaaga dambe ayuu ku siiyo xorriyad sharcigana waxaa la yidhaahdaa pay yourself first aan ku yar sharaxo dakhliga ku soo gala nidaamkan u samee dakhliga ku soo gala 10% ilaa 20% kayd aku ahaada inta aadan $1 xataa wax bixin markuu wax ku soo galo 10% ka dhaxqaad dakhliga ku soo galay ka bacdina kayd ka dhig lacagtaas akoonka kaydka kuri lacagtaas ama guriga dhigo oo xaafadaha kuuba taalo haddaan akoon lahayn ama akoonkaaga aad waad leedahay qayb dhigaala dhigo hadday kugu adag tahay oo faruq cununayaan oo waxna kiidsin karin mobilna aadan ku haysan karin xaafadana aad ku haysan karin akoon kale soo furo oo halka ku rid sheekhow عليكم maanta meherada maxaa la shaqeeyay Allah buugayga xisaabta xageen u doontaa xogtii sanadka hore dhan qorayay
halkan ayaan ka maamulaa meheradayda iyo xisaabi fudeediyaha hantidaada mid ganacsi iyo mid shakhsi ahaaneedba. shaacinta iyo xisaabi waxaa ka dhiman waqti yar oo kooban haddii aad rabto inaad ka mid ahaato dadka tirada yar leh ee marka ugu horreysa aan fasaxno iyo xisaabi inay isticmaalaan linkiga hoosta yaalla whatsappkaasi nagala soo xiriir si booskaaga aad u xaqiijisatid. 3 adkee helitaanka haddaad ku nooshahay Ethiopia lacagta waxaad u beddeshaa dollar akoon Somaliland ka soo samayso ka bacdina sariflaa wajaal joogo u dirso waxaad tiraa akoonka ku shub halkaana kala soco. haddaad joogto Soomaaliya akoon labaad ka soo fur bangiyada jira way adkaan doontaa hadhow inaad lacagta kala soo baxdo waxay noqonaysaa bankiga inaad soo qaadid saxiixid aad sugtid waxaas oo dhan. haddaad ku nooshahay qurbahana akoon kale oo saving card soo furo laakiin yuusan noqon kaarkaasi mid aad wax ku iibsan karto ama aad kala bixi karto. laakiin hal shay ayaan ka iloobay taas oo dadka taajiriinta ay ku dheer yihiin kuna fudaydin doonta inaad si fudud wax u kaydsato. fudaydinta kaydka waxay leeyihiin nidaam fudud oo wax u kaydin karaya balse adiga ka maqan. tallaabooyinkan soo socdana raac. 1 samee ujeedda cad sababta soo hel aad u rabto inaad wax kaydsato hadday tahay caruurtaada hadday tahay mustaqbalkaaga haddii ay tahay naftaada haddii ay tahay wax degdega ama haddii ay tahay dhigaal sababta oo aad ogaataa waxay kuu fudaydinaysaa inaad wax kaydsato. anigu sababtaan u rabay inaan wax u kaydsado waxay ahayd shaqada aan ka shaqayn jiray ayaan aad u necbaa. marka aad soo hesho sababta ka warwar dambe oo lacageed waad istaysay. 2 tallaabo yar qaad dakhliga ku soo gala bishan ugu horeysa 5% oo keliya cirfis ka dhig una bixi hantideedii koobaad. tusaale ahaan $500 ayaa ku soo gasha 5% oo keliya cirfis ka dhig waxay noqonaysaa $25 hantidaadii koobaad saa ayaad ku dhigatay. bisha labaad ku celi haddana sidoo kale bisha saddexaad ku celi. haddeer waad haystaa nidaamkii wax lagu keydsan lahaa balse saaxiib la noqo tallaabooyinkan soo socda. 1 sug 24 saacadood si aad wax u iibsato haddii aad wax rabto. 2 isticmaal waxa aad rabto inaad qorto. 3 xirfadaada sare u qaad si dakhligaagu sare u kordho kayd fara badanna aad dhigan karto. lacagta aad kaydsato haddaadan garanayn waxaad ku qaban lahaydna videogan ayaa ku anfici doonaa ee daawo.